Assalaamu calaykum waa idin salaamay dhammaantiin soo dhawaada kusoo dhawaada Ramla in the kitchen maanta maxaa noo hayaa alaab casri ah horey loo arkin weligeed la arag la maqal la urin maxaa waaye he rooti iyo xalwad la isku dubaayo waaye rooti bannaan laga soo gadaa xalwad la dhex gashanaya haddiid arki jirtay maanta waxaan kuu hayaa rootigii oo aad ku dhex dubaysid xalwadda very easy simple na si fiicanna isku dhex galayaan aadna tasty u ah stay tuned daawasho wacan waxaan ka sameeyay iyo sidaan u sameeyay halkan waxaan kusoo shubtay waa burka waxaa waaye 3 koob iyo bar bur ah kama badna kamana yara qiyaasta 3 koob iyo bar koobkii markaas aa haysatid ayaad ku cabiran kartaa waxaan ku darayaa waa sokorta waxaan isticmaalayaa 4 qaado kama badina ayadana because xalwad ayaa dhexda ka gelinaya lagu cunaaya ma rabin inuu too much noqdo 4taas qaado oo sokorta ayaan ku shubay halkan waxa igu jira hal qaado weyn oo waxa waaye qamiir yeast fixiso qof walba sida uu garanayo hal qaado yar oo cusbo ah waa qaadada ilmaha cuntada lagu siiyo oo cusbo ah cabirkan waxa waaye cabir isku dheelitiran waxba kaagama baahna marka hadhow ukunta iyo caanaha iyo alaabta kale ku dartid wuu iskeenayaa qasniinka intii borderka ahayd ayaan isku qasay si fiican ayaan isku dhexgeliyay waxaan ku darayaa hadeertan 2 xabo oo ukun ah ukunta 2 xabo bis ayaan isticmaalayaa intan waxaan ku haystaa waa hal koob caano qandac ah caanaha ma qabooba waa qandac nooca rabtaan isticmaali kartaa kuwa freshka caano booro wixii ay haysatay waxaan kaloon ku darayaa kooto saliid ah intaan ayaan hadeertaan waxaan rabaa inaan intaan isku qaso si fiican isku dhexgeliyo wax kale kuma daraayo cabir isla waayo ya bur xataa kuma daraayo hadhow caano kale kuma daraayo intaan ayada iskeedayso sa u xashaysid waa kana suu iigu soo baxay ayuu kuugu soo baxaya only waxaad isticmaalaysaa oo korka ugaga daraysaa kaliya wax yar oo saliid ah hadba gacanta ku shubanaysaa suusan kuugu dhegdhegin wuu yara jilicsan yahay waa kana rootigana xashnin ayuu rabaa si fiican inaad u xashtid waan soo xashay waan soo dhameeyay waxaan rabaa hadeertaan inaan daboolo inta aanan daboolin ka hor waxaan sameynayaa waan isku keenayaa waa kana geesaha meel walba waxaan ku darayaa oon korka uga shubayaa wax yar oo saliid ah ma rabi inuu korka jacdado ama qaleyl ka noqdo saliidda ayaan korka ka marinayaa saliid la-aan haddaan ka dhigo waxaa waaye xoogaa dry u dareemaya qaleyl waxaan sameynayaa bacdan ayaan korka ka saaraya bacdan hadday haysan oolin guriga dhib male digsi daboolka isku daboolo baaquli isku dabool hadday haysato ku qaso ku daboolo saxan saar wax la saara male waayin maro saar ya meel huura dhig markaas wax dhiba malahan hadda meel ayaan dhigayaa intuu soo fuuraay ayaan sugayaa markuu soo fuurana waa isku soo noqonaynaa waa kana rootigii wuu ii soo faxay ama waa soo fuure saan rabu ku soo baxay bacdan ka fiiqaya si qurux badan ayuu u fuuray roundigiisii ku soo baxay maasha Allah saa idin sheegana cabirkii aan idin tusay waxba kuma darin adaa rabti inaad try garaysid qiyaastaas raac exactly saan ayuu kuugu soo baxaya waxba kaama halaabayaan waa kana rootiga diyaar waaye burkiisa hadda dhinacan ayaan dhiganayaa halkan waxaan ku haystaa waa xalwadan dhudhub ayaan usoo jajaray waa xalwo kismaayo oo hadiyad la igu keenay ama gifti way badnayd marka waan u fakiray waxaan iri maxaad samaysaa waxa igu soo dhacday fikradan marka inaan ayadii rootiga isku dubo waa ujeedaan dhudhubkan ayaan u jarjaray waa kana haddana waxaan bilaabayaa ayada iyo rootiga sidii aan isku dhexgelin lahaa oo iskugu dubi lahaa xalwada halkan ayaan dhiganayaa dhinacan burkiyaan soo qabsanayaa gacanta wax yar oo waxaan rabaa inaan marsado saliid ah suusan burka igu dhegdhegin waa ujeedaan wax bur dhan isticmaalay ma rabi burka ya saliidda ayaa ka fiican qaybta rootiga markii aad sameynaysid badana waxa fiican saliid inaad gacanta marsatid ama meesha aad ku fidinaysid always waxa fiican saliidda bur haddaan isticmaalo burka wuxuu ka dhigaa adayg uu ka adkeynayaa burka rootiga burkiisana mar walba waxaa fiican inuu very soft yahay meeshii aan ku fidin lahaa waxaan ku shubay wax yar oo saliid ah burkii ayaan dhigay gacanta ayaan ku ballaarinayaa waa kana uma baahna shaqo badan xoog uma baahni inaan u fidiyo kala ballaariyo wax yar oo saliid aan ku daraa haddaan arkay inuu rabo inuu gacanta qabsado
waa kana gacantan saan ugu ballaarinaya ujeedaan geesaha diyaar waaye hadeertaan ma isticmaalin qoriga oo lagu fidinaayay hadaa rabtid adigu isticmaali kartaa laakiin gacanta iga fududaan dhagdhag ku siiyo hadaa rabtid meesha markaa saartid saliida marisa qoriga wax yar jagjag oo ku siin kartaa wax dhiba ma lahan lagu fidiyo xalwadii ayaan soo qaaday dhexda ayaan saaray gees ma saarin oo ujeedaan dhexda ayaan ku aadiyay dhinacaasaan soo qaadayaa waan ku daboolayaa xalwada inay qarisaan rabaa dhinaca kalena sidoo kale waa kana labada dhinacba waan ku daboolay ka bacdi waxa waaye hala tolo waaye waa la tolaa oo ujeedaan dhab aan isku siinoyaa ma rabi meel furan inaan ka tago inuu rootiga leersada lama rabo waa inaad si fiican u xirtid dulaal iyo xas uma rabi haddii kale hadhow xalwada markay dabka gasho dhalaasho ka soo baxaya so waa inaad dhakab isku siisito shid waa kana dhinaca kalena waa ujeedaan labada dhinacba waxaan hubinayaa inuu si fiican igu xiran yahay afkiina waa kana diyaar waay saan jeclahay waxba kama dhibano wax yar ayaan bush gareynayaa le kana ujeedaan aan filaya meesha isleedahay wax yaraa ka dhiman dhac gacanta le ku bush garee wax dhiba ma lahan waa kana saan uu kusoo baxay rootiga waxaan saarayaa hadda meesha aan rabo inaan ku dubo foornada la geliyo ayaa toos u saareysaa meel inta dhigta hadhow hadana ma qaadaysid maya marka dhameysid xirniinka labada dhinac make sure inay xiran yahay then waxaad saaranaysaa meeshii aad ku dubi lahayd waa kana halkaan rabo inaan ku safto kulli haddana saliid kale ayaan halkaan mariyay jab kale ayaan soo goosanaa waa kuusayaa asagana round ayaan ka dhigaa ka bacdi meeshii aan saliida mariyaan saaraa saliid yaraan korka kasii marinaa gacantii aan ku bush gareynaa waa kana saa hore idinku sheegaba qoriga oo burka oo lagu fidiyo waa isticmaali kartaa feel free wax dhiba ma lahan round yaa ka dhigaysaa wareeg meesha saaray qoriga wax yar jagjag ku siine waa isku dhamaatay asaga xataa fudayd waa uba ka iisisan yahay gacanta laakiin I don't know ani waxaanba ka jeclahayba gacanta lagu kala ballaarinay xalwadii kalaan saaray rootiga xabadii labaad waa kana waan tolayaa marka afka waa isku qabanayaa afka qaybta kalena waa tana dhexda lama rabo meel dhan inuu ka qaawan yahay waa la asturaa meel kasta xalwadaba inay dhexda ku jirto in la arka ma bala rababo ya dhinac kasta midig bidix hore gadaal waa laga asturaa waa la isku dhajinaa waa kana xabadan asagana ujeedaan saan ugu soo baxay ya very simple asna meeshii aan saaray xabadan waa kana waan ballaariyay already xabad xalwaan soo qaadana xalwadana saa jeceshaa daarabti intaa yaryaraysid maaragtay oo rootiga beegarka camal kuuskuus intaa rootiga dhigto xalwada dhexda ugu shubtid rooti kuusan ka dhigan kartaa xalwadaas iyo rootigaas laakiin ani ahaan dheerarka ila fiican rooti dheer iyo xalwadiisa xalwada ani jab yaraan ku daray daarabti waa ka badsan kartaa xalwad badan aan ku dari kartaa daarabti waa kasii yareyn kartaa daarabti waa jarjari kartaa say kaa tusta waay ya sidii aad jeceshaa halkaan uu ka furan yahay meesha isdhahdid xoogaa uu furan yahay saasaa loo tolaa dhakab la isku siinee meel furan ba ka yeelinbo uu ka leersanay ya meel walba waa la xiraa waa kana diyaar waay halkaan aan kusoo wada safay rootigii dhan markii aan xalwadii dhexda kasoo geliyay soo xirxiray maradan aan ku daboolayaa waxaan rabaa cabaar inuu meel yaalo oo soo fuuro mar kale ya isla markii foornada lama gelinayo xoogaa ha soo fuuro afta fuuro waa kana saanu ku soo baxay cabaaraan u daayay uu soo fuuray diyaar waay hadda wax ka dhiman ma lahan just waxa ka dhiman ukuntiisii iyo wax yaro taabasho yar leh halkaan waxaan ku haystaa ukunta qaybta jaalaha waay waa kana cadaan dhan kuma jiro waan ka miiray cadaanka waa qaybta jaalaha kaliya waxaan ku darayaa wax yaro caanaha kama badinaay caanahaas iyo ukuntaas ayaan isku garaacaa rootiga rooti badan hadduu yahay familka badan yahay ukunta 2 xabo ka dhig ya haddii family yartiin halkaan xabo kugu filan aan rootiga intaan leen basameeyay ma badin diyaar waay hadeertaan rootigii waa kana waa ii diyaarsan ukuntii waan qastay dhinacaan dhigtay halkaan mindi aan ku haystaa mindida inaan ku jeexaan rabaa ya line yaala ugu sameynayaa waa kana halkii xabo rooti ahbo waxaan ku sameynayaa 3 line 3 dilin mo 3 jeeraan dhac ka siinayaa waa kana
xabadii koowaad waan sameeyey tan labaad haddana isla aragno waatana dhacan ka siiyey labaad waa kana diilintii saddexaadna waa tana waaba isku dhamaatay ya xabadana hadda idinku tusaaya kale oo saddexaad aayar le waa kana mindi xoogaa afle hadday lahayn dhib ma lahan sakiin cusub waad isticmaali kartaa sakiintaaba kasii fiicanbo waan soo wada jeexay rootigii waa kana ukuntii haddaaya aan qasay iyo wixii yarkoo caanaha aan ku shubaayay aan isku qaraacay aan hadda korka ka marinayaa rootigana already diyaar waayo uu soo fuure waxaa ka dhiman leh ovenka in la geliyo rooti sidiisa kusoo fiirinaya waxaa waaye ma nuuraayo marka xoogaaba taataabasho yar leh loo sameynaa waa taataabanaa leh ukuntana waa lagama maarmaan ukun markaa daadahin dhib ma lahan waxaad samayn kartaa caanaha marsanaysaa ukunta guduud ayay u yeelaysaa qurux ayay u yeelaysaa halkan waxaan ku haystaa waa sisin rootiga ukuntii caanihii kulli soo mariyay inta meesha saaran haddana sisintan ayaan korka uga shubayaa sisinta carafay samaysaa waa aad bay u fiican tahay haddaadan markaa haynin wax dhiba male xabad soodo waa isticmaali kartaa xabad soodadaaba kasii macaanbo oo ka caraf badan oo maasha allah ah xabad soodo sisin haddii rabti isku dar haddii rabti kii haysid leh haddana waxaan gelinayaa ovenka uu shidan yahay 180 kor iyo hoos wuxuu ku jirayaa 15 ilaa 20 daqiiqo ugama badinayo waa kana rootigii waan kasoo bixiyey ovenka waa yara kulul yahay ma qaboobin ya weli waxaa waaye gacanta zaaid uma qaban karto uu kulul yahay aad ayuu qurux ugu soo baxay waa ujeedaan hoos waa kana kor waa kana ya xalwadii gudaha ugu jirtaa waa kana zagzagti ah hadaay siinay dilmihii san ayuu ku soo baxay cajab waxaaba intaas ka sii daranba carafta guri waxa isqabsatay caraftii rootiga tii sisinta iyo tii xalwada dhexdana aan fiirino sidoo ku soo baxay rootigii iyo xalwadii iswatay alaabahan adaa barato oo samaysid waad ka maarmaysaa xalwad iyo rooti banaanka intaa rooti kasoo gada dhex gashanaysid gurigaaga ku samaysanay waa taa xalwadii waa ujeedaan rootigii waa iswataan koobkaaga qaxwaha le u karsane dhab isku siinay wax ka maqan male casariya fudud le waay waxaan soo dhaweynayaa gabdho badan wiilal badan hooyooyin badan oo nagu soo biireen soo dhawaada ayaan leeyahay team Ramla in the kitchen gacmo furan iyo qalbi furan ay idinku soo dhaweynayaan waxaan filayaa inaad ka hesheen si share gareeya si dad badan uga faa'iideystaan hadaad ka heshay fadlan like tahay loobin soo dhawaada assalaamu